شهيدي يجيو معاكو الدفاع هي دستور كقرن كبقن كيسا كل شهيدي وحنو وبري ما إلهي حريستي سنك ورابيو اهل كودي يا قرابدي يا دمانو مدى الشيخ سبالاد حقوق ضاعي بنتين الله ليهنا يا نوح اللين إلهي سوري ما نكسير انت كدي لغاية موضوع واحد كسوتين هذاك عوا لمن بنتين يجيو الضحي بالدفاعية كبقى الدستور كطرق أي كسوتين تاريخ عام حيركم محو كلي halkaa iyadiiyo ku guda jira ay u dhinteen qodobka 12aad ee dastuurka faqradiisa labaad haddii la yidhaahdo unan xeerku waa ogolyahay waxa weeyaan inuu naftiisu taagno weeye qodobka 12aad ee xorriyadda banaanbaxa ka hadlaysa iyo ciidamada iyo saxaafadda faqradeeda labaad waxay leedahay muwaadin kasta wuxuu xor u yahay inuu abaabulo kana qayb qaato kulan ama banaanbax nabadeed oo xeerka waafaqsan ka ay gudanayeen ay ku guda jireen adeegsanayeen wuxuu ahaa falxaykaasa oo nabadgelyo ah oo maalinta golaha baarlamaanka loo diiday inay madashoodii u soo shaqo tagaan ay dareenkooda ka muujinayeen inay ka xun yihiin falkaa hay-addii ay soo doorteen layska hortaagay gudashada xilkeeda qodobka 12aad faqradiisa koowaadna wuxuu odhanayaa qofna xorriyadda loogama qaadi karo si aan xeerka waafaqsanayn وطنيردي وصليا أي كنا وعمي فالكاي مكافأ ورهبينه هذه كنا وعمي طلق سنية وباتنات فغردي سكوادنا وطاقري قفل حريتي صلوغ مقابي كرو في عان حيك وفقلي معني حيكا في سجا هم دورو قدامك وقف حيكي سكو حديدون مريان فكرة الله ما قاعد يكره شرعيها قدر كلا يستقبل مهمين المسوق أبناء قدر كافر يلا تناد فقرتي سكوان وقدر ككشة كان يه قيمها إلا هاي نفس بالآدم جيو كرامة إلا هاي نفس آدمه هو بغياهي وأنا قالي قفك السنوات يحق الليل نورشيسة وأنا كواي كراغو كليه marka maxkamad horteed uu ku cadaado dambi uu xeer ku jireeyay in dil lagu mutaysan karo sida uu ku waayay karo muwaadinku naftiisa waa taasoo qura waa markay maxkamada horteed uu kaga cadaado dambi xeer ku jireeyay in dil lagu mutaysan karo waayahay marka falka ay dhalinyaradu u soo baxeen uu sidaa yahay maxaa xukuumadda kala gudboon ee iyadana xeerku ka yiri قدر كسر لباتنات فقديسة صدحان هيا وحورانيسا دولة ايام مواطنين تقود مارد قاديسا حقوق دا ايه حفيدة ما هاي إلا قبريو حيركي دستور كذي لا تليني إن الحكومة تقود مارد قادم مواطنكو إن الحفيدة ايه حقوق دا دستور دا وأدكتن كرو وقدر كرو وقفل عقل كرو ومثلا عندي مواطنين تدخلوها من نظم عين وحباشو سنة بالجلية وموتستو من نظم يعملوا بيارات حيقوا وحباشنا جيدان يحي حكومتها كمسؤولة إنه كحباشني سبقنا ياسين وإينا لها إنه يفقر الدشو ويفقر العالسو ويفقر الدشو قبل خاصة لباتنات فقردي ساسة بحبو عينا إن الحكومة بسيء اللي يوصل لها حقوقها هي حريات عليك بيسا إيوة تكتارين وضماركات مركا لله الحكومة وضماركات سوحويني إيوة مواد ويدا حقيقة عليك تنكروا إلى الأسعة ويكون قرطوا
hadasho oo ku caawinto oo cidii soo hortaagtana iyada ay iska gudubtay ayaa laga maarmaana qodobka 24aad faqradiisa afraad ayaa waxa oranaysa dambiyada laga galo xuquuqda qofka sida xasuuqa dil maxkamad la'aan dilka iyo wixii la mid ah malaha muddo dhaaf dambi baa ka dhalanaya haddii la soo taago xuquuqda adeegsiga xuquuqda iyo xorriyadda haddii la soo taago qofka ishortaagida uu isku hortaagay uu dambi ka gala qodobkan sidii loo sheegay oo weliba aanu dambi dhaaf lahayn ilaa weligeedba intuu noolyeeda loo soo taagi karaa loo qabsan karaa maxaa la gudboon xukuumadda maanta halka caynkaasa muwaadiniintu inay adeegsadaan xeerkuu siiyey xukuumadduna inay ilaway damaanad qaadaye inay gudashadooda isku garab taagtay u ogolaatay u fududayso laga doonayay maxaa kala gudboon aan horaysiyo horta maxay ka yeeshay waynu la soconay iclaamkii ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha halkaa wasiirku maalintaa wuxuu yidhi markii ugu tuuray bambaanayaal ee dadka qaar dhaawacmeen buliiskii baastooladeeyo hubna loo adeegsaday ayaa ciidanku rasaas furay subxaan allah waana la soo mara maalintaa goobjoog baan ka ahaa halkaa in badanoo dee rag mas-uuliyiin oo halkan joogay iyo dhallinyaradana rag badan baa joogay sida wuxu dhaceen waynu ognay xildhibaanadii la yidhi u soo shaqo taga bashinta golihiina ee b b c-da laga sheegay idaacadaha laga sheegay inuu golihii furmayo haddii la iska hortaagay oo qoriga dabadiisa iyo burkiisa lala dhace fanaxyada lagaga tajariyo wayna la fadhiyaan xagga nabarada loo geystay xildhibaanada ahaa dhallinyaradii sii daaya mudanayaasha iyo shirgudoonka iyo maxaa ku dhex xildhibaanada u sii daaya shaqadeeda ku dhawaaqay markay xildhibaanadii iyo shirgudoonkii dhaafeen ayaa xaradii lagula dhacay dadweynihii markaasaa la soo dareeriyey qoladii gaas maaska iyo sidatay maxaa ku dhahdaa ciidamadii rabshadaha ka hortegayey ciidankii qoryaha sitayna uu fataxay rasaasti maalintaas aniga waxay leeyahay maalintii labaad ee aan uriyo suntaa gaas maasta ah maalintii koowaad waxay ahayd maalintaa uu axmed maxamed wadar ka sheekaynaya 66kii ayay ahayd gaas maasto urtii iyo xigtay maalintaasay ahayd taasina taas maalinta dhaweyd ahayd kaasi waxa uu ahaa xuseen axmed caydiid axmed maxamed madar oo ka mid ahaa